caamil fiil waa qiyaas ahaan 570 taariikhda miilaadigu markay ahayd, waxaana sannadaas dhacay mucjiso weyn. berigaas waxaa ka talinayay dalka Yemen boqor Abraham oo ahaa boqor Xabashi oo wakiil ka ahaa boqor Najaashigii ka talinayay dalka Abisiiniya. Najaashi ma aha Najaashigii aad taqaaneen ee isagu magangelyada siiyey saxaabaadkii uu soo diray Nebi Maxamed calayhi salaatu wassalaam, balse waa aabihiis. boqor Abraha waxa uu arki jiray mar walba qabiilooyinkii carabta ee isaga xukunkiisa hoos simaanayay oo sii boqoraya sanad walba dhinaca waqooyi, una tegaya inay ku soo dawaafaan Kabcada. Najaashi waxa uu ku fikiray inuu sameeyo kiniisad weyn oo u dhiganta Kabcada oo ay ku dawaafaan qabiilooyinka carabta si uu lacag badan uga sameeyo. wuxuuna bilaabay inuu dhiso kiniisad weyn magaalada Sanca, waxayna ku qaadatay muddo 4 sano. wuxuuna ku amray qabiilooyinkii carbeed guud ahaanba inay u yimaadaan si ay ugu dawaafaan kiniisadan, wuxuuna ugu magacdaray kiniisadan Al-Qulays. qabiilooyinkii carabta oo aad u cadhaysan ayaa u soo diray nin ka mida reer Bani Kinaana oo isagu saxaro ku xardhay kiniisadii Abraham oo arrinkan ka cadhooday ayaa waxa uu kiciyey ciidan aad u xoog badan, wuxuuna ku jiheeyey dhinaca iyo Kabcada, wuxuuna ku dhaartay inuu ka argoosanayo Kabcada iyo qabiilooyinka carbeedba. Abraham waxa uu isticmaalayay markaas maroodiyaal aad u waaweyn oo u dhigmayay dubaabaadka hadda la isticmaalo, wuxuuna ka horreysiiyey ciidamadiisii, waxayna u dhaqaaqeen dhinaca iyo Kabcada. Abraham waxa uu ku talagalay inuu cid walba oo ka hor timaada cagta mariyo, ouna isucuna abaabulay ciidankii ugu xoogga weynaa berigaas ee abid la abaabulo, wuxuuna ku dhaartay inuu ka argoosanayo Kabcada oo uu dhulka dhigayo gebi ahaanba. laakiinse wuxuusan ku talagelin oo uusan meesha keensan in Kabcada uu iska leeyahay ilaaha koonka abuurtay oo isagu uu difaacanayo. Abraham waxaa la sheegaa oo qur-aanku sheegay maroodi keliya, laakiinse qaar ka mida qolooyinka taariikhda islaamiga ayaa sheega in ugu yaraan 20 maroodiya in la isticmaalay. Abraham waxa uu diray nin ka mida ciidamadiisa, wuxuuna ku amray inuu u tago oo uu la kulmo Cabdulmutalib oo isagu wakiil ka ahaa Kabcada, odayna ka ahaa. ninkii ayaa u yimid Cabdulmutalib, waxaana uu sheegay inuu rabo inuu arko Abraham oo isagu ciidamo xoog la wata oo aan la hor istaagi karin wata, qofkii hor istaagana cagta marinaya. Cabdulmutalib ayaa waxa kaloo loo sheegay in ugu yaraan 200 oo ka mida awrtiisii la qabsaday oo Abraham uu qabsaday. Cabdulmutalib oo isagoo awrkiisii wata waxa uu dhaqaaqay oo u tegay ciidamadii Abraham. Cabdulmutalib wuxuu dalbaday inuu la kulmo Abraham iyo ciidamadiisii. nin ka mida madaxdii ciidamada ayaa Abraham u kaxeeyey una geeyey dhinaca iyo Abraham oo markaa ku jira teendhadiisii. Abraham oo la yaaban geesinimada odaygan ayaa waxa uu weydiiyey waxa uu bal ka codsanayo maanta, maadaama uu socdo inuu baabi'iyo oo burburiyo Kabcada. Cabdulmutalib waxa uu weydiistay uu ku yidhi, waxaan rabaa inaad ii soo celiso 200 ee awr. Abraham oo arrinkan la yaaban ayaa ku yidhi, war waxa aan ku soo duulay waa Kabcadii iyo diintiinnii iyo gurigiinnii, markaasaad i weydiisanaysaa 200 oo awr, maxaa kaasiya miyaadna damiir lahayn? Cabdulmutalib waxa uu ugu jawaabay, anigu waxa aan leeyahay oo aan mas-uul ka ahay 200 ee awr. Kabcada waxaa difaacanaya ilaahii samaystay ee iska lahaa, Allah ayaa difaacanaya ayuu ku yidhi. Abraham oo arrinkan aad ula yaabay ayaa u sii daayey 200 ee awr. Cabdulmutalib waa uu kaxaystay, waxauna tegay Kabcada
wuxuuna ku amray qabaa'iladii ku noolaa goobta inay isaga cararaan oo ay u firxadaan dhinaca buuraha. waxay ahayd arrinkani qiso la yaab leh, waayo ciidamadii abraham waxay u soo dhaqaaqeen dhinaca kabcada si ay cagta u mariyaan oo ay u burburiyaan. haddaba intaas kadib maxaa dhacay? abraham waxa uu watay maroodiyo waaweyn. maroodyadii waaba ay diideen inay u dhaqaaqaan dhinaca kabcada, oo mar walba oo laysku dayo in loo dhaqaajiyo dhinaca kabcada waa ay diidayeen oo jihada ayaaba ka lumaysay. waxaana laysku dayey in la xakameeyo oo kolba dhinaca loo jeediyo, laakiinse innaba waa ay diideen inay u dhaqaaqaan dhinaca iyo kabcada. waxaana markii dambe la maqlay guux, waxaana soo kacay markii ugu horreysay taariikhda oo lala yaabay shimbiro raxan u socda oo iyaga loo soo diray inay gebi ahaanba baabi'iyaan ay cagta mariyaan cid walba oo isku dayda inay guriga ilaahay burburiso. shimbirahan waxay wateen dhagaxaan naara, waxaana noqotay markii ugu horreysay ee samada laga soo daadiyo gantaalo naara oo lagu duqeeyey ciidan cadow ah oo abid lagu burburiyo oo la arko. waxayna ahaayeen dhagaxaan yaryar oo naar ah oo qofka marka ay madaxa kaga dhacaan dhinaca dambe ka baxayey oo gebi ahaanba qofka burburinaysay. waxayna noqotay duqayntii ugu cuslayd ee dhinaca samaawaadka ee lagu qaado ciidamo cadowa. bal haddaba dabadeed maxaa dhacay? mucjisada maalinta dhacday ilaahay korreeyey waxa uu uga warramay suuratalfiil, wuxuuna ku bilaabay maaragtay sida eebba ku falay asxaabtii maroodiga ama colkii maroodiga. ilaahay aayaddan waxa uu ku qirtay inuu isagu soo diray shimbiro raxan u socda oo afka hore iyo labada mijood ku wata dhagaxaan naara oo sidii gantaalkii ay ugu baabi'iyeen ciidamadii cadowga ee isku dayay inay burburiyaan guriga ilaahay. taariikhyahanada islaamka ayaa isla qiray in ciidamadii abraham wixii ka hadhay ay dhexda ugu leedeen cudurro daacuuna oo ku dhacay. abraham qudhadiisa ayaa la sheegay inuu u dhintay cudur jidhka uga dhacay oo sababay markii dambe inuu jidhkiisu googo'o ilaa uu markii dambe wadnuhu ka soo dhaco. ilaaha caalamiinta jiritaankiisu bilow iyo dhammaad midna ma leh, meel gaara ma leh, sina maaha, wakhtigu ma saameeyo, wax loo dhigo ma jiro. allah wax walbo aynu u malaysanayno waa ka beddelan yahay, waana adkaade falsan. la wadaag asxaabtaada oo u sii gudbay fideogan.